السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن هو سيتي برودكشن 1 casharkana waa casharkeeni 7 iyo 7-aad waxaan ku soo qaadan doonaa sidee loo xidhaa waxa loo yaqaano xisaab xidhka sanadkii la sameeyo adigoo tagaya meesha ku qoran tahay report soo dooranay normalize dooranaya profit and loss ka sidee xisaab xidh u sameeysaa sanad walba oo aad u soo siro gareysaa xisaabtan halkan kaaga muuqata si arrinkaasi oo soo sameeysid waxa dooran doontaa meesha ku qoran tahay company waxaana soo dooran doontaa meesha ay ku qoran tahay make channel journal interest marka soo dooratid ugu horeyn waxa dooran doontaa halka ay ku qoran tahay account debit iyo credit waa saddex meelood ee dhaqdhaqaaq ka dhici doona account marka soo joogtid waxa dooran doontaa merchandise sales marka soo dooratid halkaas ayaad ugu horeysin doontaa debitka total keeni iibka ee sanadka sameeyna waxa 9,000 iyo $110 sida marka ugu gudubtid halkan ayaad iman doontaa halkan waxaad ku qori doontaa waxa loo yaqaano returning earning faa'iidadii soo doogtay haddana halkan ayaad ku qori doontaa mar labaad return earning faa'iidadii soo doogtay marka laba jeer saa qortid halkan waxaad ku bilaabi doontaa cost of goods ka shirkadda markaas ay gashay sanadkaasi waxa ay gashay cost of goods wuxuu noqon doonaa 2,600.8 halka marka marayso halkan ayaad iman doontaa ay ku qoran tahay ay halkan ayaad ku qori doontaa waxa loo yaqaano qarashaadka waxaan ugu horeysin doonaa qofka koobaad waxa uu noqonayaa repairs waxa loo yaqaano repairs oo ah expenseska koobaad waxa weeyaan repairs oo noqonaya konton iyo 8.5 waayahay waxa ku xiga 8.5 waxa soo raaca waxa loo yaqaano telephone expenses kuna waxa weeye $13 waxa ku xiga waxa loo yaqaano local transportation oo isaguna noqonaya 278 waxa ku xiga waxa loo yaqaano water expensesna waxa uu noqonayaa $3 waxa ku xiga waxa loo yaqaano payroll expenses na wuxuu noqday 3,500 waxa ku xiga waxa loo yaqaano shaah oo isaguna noqday $4 waxa ku xiga waxa loo yaqaano computer expenses na waxa uu noqday 1,050 waxa ku xiga waxa loo yaqaano electricity na waxa uu noqday 31 waxa ku xiga waxa loo yaqaano office expenses kuna waxa uu noqday lacag dhan $4 waxa ku xiga waxa loo yaqaano masaxaad meherada oo ah $2 waxa ku xiga waxa loo yaqaano masaakiin oo u dhiganta iyaduna $5 waxa ku xiga waxa loo yaqaano xamaal fudud oo u dhiganta 28 waxa ku xiga ama ugu dambeeya waxa la yaqaano rent ama rent home expenses oo ah $200 halka markuu marayo waxaynu isu geyninaa expenseska iyo cost of goods-ka oo lagu daray cost of goods-ka waxa uu la mid noqonayaa oo aad ku qoraysaa barta ay ku qoran tahay returning earning oo u dhiganta markaasi 26,750.8 labadan ayaa la doonayaa halkan 9,000 ah iyo 55,668 must be equal baa la doonayaa inuu noqdaan sidaas ayay xisaabteenu ku xidhan tahay halkan marka aynu joogno report nahno memorize nahno waxa loo yaqaan profit and loss ka waxa la doonayaa inay halkan dhammaan siday u dhan tahay ay xisaabtaasi xidhanto kuna soo xidhanto godadkan oo dhan dhammaan ay noqdaan wada 000 aynu ku noqon
aynu nahna dabeetana save and close dabeetana nahna haawan xidhana xisaabtaasi sidaas ay xisaabtaasi 00 ku tahay kuna soo xidhmatay sanadka cusubna halkaas ayuu iibku ka bilaami doonaa ayagoo dhammaan 0 wada ah casharkeenani halkaas nugu jooga. Wassalaamu calaykum.